السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Maxamed Cumar waaye global action mana aliga meel joogtaan dadka badidooda way isweydiinayaan oo waxay leeyihiin maxay u hadlayeen bay leeyihiin laakiin waxaan uga aamusnay labada cishay fidnadu ay sacatay waa mataqaanay waa olole halka dambe laga soo riixayay oo mucaarad shisheeye iyo dawlado shisheeye oo wadanka lid ku ah ay waxaasi ay dabada ka soo riixayeen waxa weeyaan marka dadka aqliga leh way iska fahmayaan si ay wax u socdaan iyo si ay wax u jiraan waxa weeyaan dadku inaad aragtay mooyaane qofka marka qof xabsi uu ku jiro xabsiga dad baa la xidhan waxba laguma dhiibi karo telefoon laguma dhiibi karo dadka aqligoodu way garanayaan dadkii dee wax kala garanaya kii wax kala garanayna dee wixii la yiraahdo buu aaminaya talabaad haddii aan reer Djibouti aan nahay ma nihin dad laga maamulo social media oo mataqaanay dee wixii social media laga soo sheego uun aamina taas anagu ma nihin horta waxa waaye way soo saareen labadii nin maalinta shaqeynayay ee telefoonka u dhiibay waa sharci darro nin askariya oo lagu yiri mataqaanay waxaad ilaalinaysaa maxbuuskan inuu soo saaro oo qolkii kaniifka u geeyo oo kartoon u dhigo oo mataqaanay markaas de video uu soo duubo marka kharashaad badan baa ku baxay waa ogtihiin oo inaaf casawatiyeed waxa saniga ka dambeeyay laakiin lacagaha waxa ku bixinaysa waxa haboon inaad dadka baahan ee tabaalaysan reer Djibouti aasiisi laakiin waxaas de faa'iido kuma meel kuma gaaraysi libi qeyfaad maxaa ka dambeeyay de faad sharciga mari sharcigana kama sareeyo aad baan uga xumahay dadka mataqaanay aad u qiirooday waxaas in waxba ay ka jirin lagu hanaa mataqaanaa waa lagu allergy weeyaan allergy-ga cuncun weeyaan xarunka cuncunka la yiraahdo waaye laakiin de ninka xabsiga xukuma waxa uu furnayd inuu mataqaanay uu geeyo oo maxay dhaqaatiirta waayo xabsi walba dhakhtar uu leeyahay taana dibteeda leedahay moogtahay waayo waxaan mataqaanay dad baa rumaysanaya oo run moodaya marka walaalaha dibadda ku nool xaaladda la marka waa dareemi kartaa fidnadu intay leegtahay saaka subaxii saantiisa soo fadhiisatay waxayna tiri mataqaanay xalay waa la soo dhacay naaga iga qaraacay kulna waxay leedahay rag madaxu u xiran yahay baa qaaday oo gaari madow ku dhex riday waa dareemi kartaa mataqaanay sida wax loo baabiinayo sida mataqaanay ay doonayaan dadkan dabada laga soo riixayo oo aqligoodu u dhanayn in qaranka ay liidaan waayo qof dumar oo toddoba ciyaar leh maxay see loo oranayaa marka saacadaha dambe lagu qaraacay xaafadda waxay tiri qasab ku leh mataqaanay waxaan ku leenahay ma ahin de waxa leegal videoga waa arki doontiin dhageysta xalay labadii ruux dumari inay albaabka ay igu qaraacday oo igu tiri Samira walaala iga fur inaan gabadhii aan ka furay albaabka gabadha markaan albaabka ka furayna 6 nin oo ciidana ayaa garab taagnaaday markay garab taagnaayeen anigoo bilaa shalmada oo bilaa waxba ah in la jiiday anigoo bilaa shalmada oo waxba xidhnayn in la jiiday oo la igu riday gaari madow oo wada xidhan la igu riday laba gaari oo ciidanina oo waxaan ku uri ay ka horeeyeen midna uu ka horeeyay midna uu ka dambeeyay markaan ka dambeeyay kaaduus aan taaganahayna in indhaha la iga xidhay meel la geeyeen cidna aanan uga sheekayn karin oo garanay ma garanay meel alla meel habeenkii xalay la geeyay ma garan karayo halkii la geeyay wallahi inaanan garanay indhaha sidaan uga xidhnaa ayaa gaarigii layga dhaadhiciyay haddii layga dhaadhiciyayna waxaa kursi baa lay fadhiisiyey haddii lay fadhiisiyayna waxaa laygu yiri waxaad tiraahdaa ood shicibka u sheegtaa odaygii baan arkay shicib weyn oo uuna nabad qaba dhakhtarna waa la geeyay hadda waa arkaysaan videogaas marka mataqaanay waa waxde qof aqli la maahin de waxa marka dadka waxaan kula talinayaa horta marka wax dhacaan markay wax dhacaan damir waa leedahay laakiin de
damiirkaagu sidaa inaan ku kacdi maaha, laakiin waddanka waxaa jooga dad runta sheegaya jira sida anagoo kale. waxna weydiiya beeshka suutiya aan leenahay whatsappkaygaba ku qoran, waxna weydiiya say wax u jiraan. markaa say wax u jiraan annagaa sheegayna moogtahay. marka waa been weyn, saacadaha dambe la yimid waa la kaxeeyaa ya ma garanayo inay riyo tahay iyo inay dee waa wax been weyn looma iman karayo. marka walaalaha Soomaaliyeed meel ali meelay joogaan waxaan leenahay maxaa heedanay halkan ummad walaalihiina ayaa degan oo Soomaaliya oo qabiilo badan oo Carab Afar cid walba ay ku dhex jirto. marka waxa weeye dadka ina aragtay dadka Djibouti badidoodu ma aha kuwa waddanka ka baxo kuwa waddanka iska degan meesha kuloo dadka lagu caayay leeyihiin kinaacada badan iyo waxay ku sheegayaan halkaas waxaan ka jecelahay ma jirto. waayo maamul fiican waan haysanaa maanta. marka insha Allah taala waxaan leeyahay nabadgelyada nagu dadaala. haddii aad doonaysaa inaad wax xubsataan anaga waxna weydiiya, anaga wax runta ka sheegayna insha Allah. ku nool xaaladda la sacan waa xaalad mataqaanaayay mucaaradku dabada ay ka riixayaan. ninkana hadda xidhan Fuaad waa dareemi kartaa waxay isku qaraabo yihiin. Daar Axmed Faarax bay isku qaraabo yihiin. waxaa boqolkiiba 90 hadlayna waa qaraabadiisa xigtadiisa waaye, maaha cid kale. dadka hadlaya waa boqolkiiba 2 ilaa 3 way noqonaya, laakiin inta ugu badan waa reerkiisa waxaa qaylaya. marka aad baa uga xumnahay sharciga, laakiin kama sareeyo insha Allah taala sharciga mari doona. waxaan fariin halkan uga dirayaa ummadda kale walaalahaya ee dibadda ku nool xaaladda ogeyn iyo ummadda Soomaaliyeed iyagana waxaan run mooday waxaan walaalay wax run maaha. nin helicopter la baxsan gaaray oo la soo qabtay oo isagoo diraysidana sharci darro ku baxsaday oo galay Ethiopia. sharcigu maraya waddanka sharcigu leeyahay ninka armee baa soo xidhay ya. marka dad baa oranaya madaxweynuhu muxuu uga hadli waayay. madaxweynuhu waxa ma khusayso ninka waa nin baxsaday oo xeerka militariga maraya moogtahay. waddanku sharci buu leeyahay moogtahay. marka aad baan uga xumahay walaalaha Soomaaliyeed maxaa yeelan adduunka qaaradaha kala duwan ku nool waxaan wax runa maaha. waxaan waa wax dad dabada laga soo riixayo. ummadda Soomaaliyeed Cali Xalaali iyo Daar Cali Sow oo halkan Ilaahay wuxuu dejiyay ummad Soomaaliyeed buu dejiyay oo ku nool oo 42 sano calanka haysta. waxba ka helaysaan marka leedihiin waxyaabaha ku hadlaysan halkan aan kaga hadli karin oo aad u xun. waxaan leeyahay nidaamka borotokoolka ilaaliya, ixtiraamkana ilaaliya. maxaa yeelanay Cali Xalaalow mataqaanay ummadda dhibaatada ku haysay Soomaaliyeed kaftanka siyaasadda oo la baxday, laakiin maaha waa wax qaaruna weeyaan maaha. aad baa uga xunahay inaad waxyaabo been aan naga sheegtay. aad baa uga xunahay. marka nidaamkii ilaali iyo kala dambeynta ilaali. halka sharci baa ka jira, nidaam baa ka jira, maaha maamul goboleedyada caayisay iyo Axmed Madoobiye maaha. halka sharci baa ka jira. aad baan uga xumahay waxyaabaha ku hadlaysay ciyaalkuna kuma hadlaan waxyaabaha ku hadlaysay. laakiin Daar Cali Sow isaga xumaanta uu samaysan yahay waa nin xumaan uu samaysan yahay isaga. waan iska ognahay inuu Daar Axmed Faarax uu lacag siiyo oo mataqaanay iyo idaacadaha Kenya iyo koonfurta Soomaaliya inuu dad ku leeyahay. waan iska xoog baan iskaga ognahay. waan la socnaa waxyaabahaasi oo dhan. marka aad baan uga xumaan waxba qaadi maysid. aad baan uga xunahay ummadda Soomaaliyeed insha Allah waxaan waxba kama jiraan. waa waxay soo riixayaan dawladahan mucaaradka ku ah waddankeena iyo jiritaankeena. marka insha Allah taala ninkana sharciga uu mari doona insha Allah ya. marka ummadda reer Djibouti la kicinayo sida dhalka ku kacaya manihi waxaan naga rabaa inaad noqotiin dad dabada laga soo riixayo noqonina dad social media laga maamulaha noqonina. waa iska garanaysaa dhulkiina aad buu kulul yahay 9 subaxnimo ilaa 5 barka galabnimo oo ogtahay xilliga aad dhulku kulul yahay ilaa 45 degree 42 degree dhulku aad u kulul yahay. marka wadnihiina kicinina dhibaatadaas ku keenina dad xanuunsan baa soo cadibaysaan. ciyaalkii yaray xilliga siixan lahaaba soo saaraysaan kululaha u soo saaraysaan. marka waxaan leeyahay aan halkan kula talinayaa waalid walba ilmihiisa gacanta ha qabsado. waayo mataqaanay waad ogtihiin qof mudaharaad lagu soo qabtay waa si garanaysaan ya. inta walwal iyo dhibaato maxaa heedanay kugu dhici lahaa iminka dhagay far ilmahaaga gacanta iska qabso oo xaafadaada ku hayso. waxaan waa iska ogtihiin dawladdu weeyaan nin militariga baxsaday sharciga laga maray. adduunku inta la egmaba jiraba mataqaanay qof waxyaabaha saas oo kale ku dhaqmaya oo la giideynayo la maamulayo
waa markaa ninkan xidha waa inuu daahir axmed faarax dabada ka riixayo oo lacag iyo maal lagu ku bixinayo weeye waddanka sharci baa jira isaguna daahir axmed faarax labadii sano u dambeeyey ubadkiisii iyo ciyaalkiisii iyo hooyadii iyo ilmaadeeradii wixii oo dhan dowladda beljiga wala qaaday halka waxba kama yeelan marka aniga gadaashay inay waxba hajiray markuu doorasho waxba ku heli waayey ayuu dee uu leeyahay aniga gadaashay inay Djibouti jirin wadiga waqti kolna Eritrea soo raacaya kolna Kenya soo raacaya marka aad baan wax xumahay ninka saasi oo kale inaad maqashaan maahan waa wixii waddanka ka dhacay ee lid ku ah waxaasuu isagu taageeraya ninkuu doono ha noqdo kaasuu taageeraya waayo dowladdu lid ku yahay marka ninkan uma sacdo wax dhis uma sacdo waddanka hagaaji uma sacdo waayo halkuu ku dhashay oo halkuu ka qaatay mataqaanaa waxbarashadiisa iyo halkuu wax ku bartay iyo khibraddan uu maanta uu sheeganayo iyo digtoornimadan marka maanta waxaan leeyahay dadka waa inay xaaladda ay la sacdaan marka waa isku hayb marka waa waxay ugu heelinayaan waaye marka insha allahu tacaala waxba qaadi maysaan baan leeyahay ninkana sharciga u mari doona insha allah sharcigu wuxuu ka siiga ayuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed Soomaali Maxamed meel aliga meel joogtaan waan salaamayaa waa walaalkii Maxamed Cumar Xasan waaye insha allahu tacaala waan soo salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh